السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي وإن سلامي ساودنتين كسو دواذا محمد جانل ما شاء الله وإن كجم هاد علنا لسعشدينا لكن أيامهان لايك بدن ما أركو dadka nagu cusubna subscribe ha saaraano si ay u ogaadaan waxa aan sameeyno kulligiin xafidullah. maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo imtixaanada la soo dejiyayo qamiista 25 bisha oo GCSE-da xalwana aan kariyo. marka ku soo dhawaada maxamed jaanal mar kale ma sha Allah. inta waxa ku haysanaa waa ujeedin subagan ay geed ahaan subag saasi waaye batargii ahaan dadkan sida kale u yaqaanaan batargii waaye. marka waxaan ka rabnaa bakeeri ya ma sha Allah waa suura raaciyaa ma sha Allah bakeeri aan ka rabnaa. marka waa kana bakeeri subag ah ujeedin. inta waxaan ku rabnaa caleen oo karsana caleenta caadiga ah caleenta caadiga ku karsanayna waa kana caleen caadi ah arkaysiin biyo leen ku daray. marka waa kaasa kan inta sii qasmaayo kaasna waa aragteen. waxaan rabnaa inaan sameeyno waraangaan rabnaa waraango corn flour corn starch waxa u taqaanid. waa kana 500 aheyd markii hore 500 aheyd 500 aheyd bad waxaan rabnaa quarter aan rabnaa tuminaan rabnaa afar markii loo qaybiyo qaybaan rabnaa. marka tuminkii inta noqdo waa arkeena miisaankan aan ku shubaynaa miisaankan ما شاء الله 125 waaye. waa arkeena 125 gram intee noqoto. raadi ahaada meesha dhismaha ka socdo guryaha. marka wax hadii maqashiin waa kaas 125 gram aan rabnaa waa taasa. marka inta ku shumeynaa 125 meeshaan kiilan karihayna hadaa 2 kiilo kariis 250 aan rabtaa saasna insha Allah. caleentaan oo dhaariha ya caleentaan si fiican yeena meesha nooga dhaxbaqin ya markasta xasuusno caleenta si fiican uga miir wixii caleen ah markaasay tan ka bixi ee kaaga baqdan iska mir. waa kana inta ku shubaa waa 125 oo waraangada aheyd ama corn flour aheyd corn starch aheyd aan ku shubaa intaas oo biyo ah oo caleen. marka waa kana si fiican isku dhex geli si fiican waxaan inay smooth noqdaan la rabaa. marka waxaan ku daraayna waa in tusaa kisto waa israacsiinaa wixii lagu daraayo kale waa in tusaa. marka hore way adag tahay laakiin marka dambe smooth noqohee markaad xoogaa caadada ku wadid. marka waa kana colorkan red waaye red color food coloring yani hadaa rabtid budadiisa asoo ah waa isticmaali kartaa hadaa rabtid biyaha. marka aniga biyahan aan keensaday redkiisa waata intaan ku shubaayo waa in tusaa half oo teaspoonful half teaspoonful waa kaas half teaspoonful aan ku daray. marka waa kana saasay noqotay. waxaan kaloon ku darayaa ayadana meesha ka maqneen
orange food coloring ya kan gel waaye iyadoo budo ah way jirtaa iyadoo biyahan camal way jirtaa laakiin hadda gelkaana helay waa waaye maxay ahayd kuwa kale waa kana asagana wax yar lagu daraa sababtoo ah gel waaye strong waaye marka intaasaan ku daraynaa waa ujeedin teaspoonful wax yar marka waa arkaynaa sida ay noqoto weliga aan jelka ma isticmaalin marka siday noqoto waa la arkaa wixii soo kordho yaroo kale markaas marka bes waaye waa idin tusay waxaa inta ku qasan waa kalaradii iyo waraangadii iyo shaahi waaye waa taasaa waa isku dardaray marka waxaan sameeynaa marka kanaan soo qaadanaynaa waa digsiyaan soo qaadahaynaa biyahaan cabiraynaa biyaha 4 bakeriyo biyo ahaan rabnaa digsiga ya waa kana ko labo saddex afar okay afartaas biyaha waxaan rabaa nutmega teaspoonful teaspoonful nutmeg waa kaas Joyce waaye maasha Allah marka teaspoonful waa kaas kana waxaan rabaa 2 teaspoonful ama waxay u dhigantaa hal qaado weyn marka si loogu kala dardaro waa arkaysiin hadhow waxaa jirto dalkan UK dadka degan siday la socdaanba in imtixaano loo soo deji doono 25 bisha imtixaanadaas oo loo yaqaano GCSE marka imtixaanadaas hadday imaadaan inta badan hadda ka horna waa ka hadlay sookadii hore haddaa janaalkayga ka fiirso inta badan imtixaanada ee levelka ciyaalka aad ay u baaseen wax badan ay heleen maasha Allah marka loo fiiriyo sanadadii ka horreeyay coronavirus-ka oo dawladda ay sixi jirtay markay dawladda sixi jirtay 2019 iyo 2018 ardadii baasi jirtay sanadkaana ka baas badneed oo dawladda saxday marka GCSE-dana saas camal aan rajeeynaa insha Allah ilaahay insha Allah nin walba muraadku leeyahay Allah siiyo xafidullah kulligiin laakiin ciyaalka insha Allah haddii ay macnaha si noqoto oo wax kasta noqoto ciyaalkiina ha loo duceeyo hooyo iyo aabbaha u duceeyaan ciyaalka sababtoo ah haddii cunugii asaga uu naxsan yahay already oo walaac uu haayo adigana uu ka baqaayo adi inaa wacdid inaa dhahdid waa hooyo wax kasto iyo aabbo wax kasto kugu dhaco aniga habiyaan ku ahay waana kugu taageeraa qalbigaada khayr u sheeg calooshaada khayr u sheeg hadda ma hurdaan meher galaan waa dareemaysiin cunug kasta oo GCSE qofkoo la joogaa dareemayo ma hurdaayo adii macnaha asaga dhan waa maqan yahay marka ilaahay idinkiisa Allah u fududeeyo tii aakhirana Allah noo fududeeyo insha Allah laakiin waxaa laydinka rabaa inaa ciyaalka u duceysiin inaa encourage garaysiin inaad tiraahiin wax kasta waa sidii ileen waa la dadaala haddii la dadaalo cunuga uu dadaalay muxuu kaloo qabaha ya marka insha Allah u duceeya una sheega inaad garab taagantiin markasto calooshiisa si ay nadiif uga noqoto adiga xaggaada walaaca laba walaaca hadda iskugu daran oo imtixaanka ma baasi doontaa hooyo aabbo maxay ku dhihi doonaan see lagu yeeli doonaa marka insha Allah
taas important waay in ciyaalka loo duceeyo loona sheego intaan imtixaanka lasoo dejinin ka hor markasta loo sheego wax alla waxaa keento habiyaan ku ahay qalbigaada qeyr u sheeg tartiib u soco marka insha allah saas ciyaalka la yeelo wax badan ana uga hadlaayo oo imtixaanada say kala yihiin iyo waxyaabaha ilmaha inay dalbadaan ay tahay waqtigay dalbahayaan channelka waa ku sheegay videoga ka horeeya fiirso insha allah laakiin markasta ciyaalka loo duceeyo caloosha ha loo furo hala encourage gareeyo sidii ilaahay ka dhigay naqahaysaa kulligiin xafidullah insha allah waatana hadda xalwadii way karkartay biyihii way karkareen marka waa intusaa anoo ku daraayo waa kaasaa biyihii saasay u karkareen waa ujeedina umalayhaan marka kiisoo walwalaaqay iyadana waa tanaa inay wax ku haraan lama rabo inay ismuud noqoto waaye waa kaas intii aan isku dardaro waa ogeedeen ila socdo marka waatana waa ujeediin boodaysa waxaan ku shubayaa haaf subag ah aan ku shubaa haafkan oo subag ah taas daboolna waa saaraa maasha allah nutmeg Joyce halfkii oo teaspoonfulkii aan ku daraa waa kaasaa maasha waxaan ku shubaa xoogaa heel ah heelka 2 teaspoonful ahay xoogaan ku shubaa teaspoonful u dhiganta marka waa ku walaaqaa waatana xalwadi marka waxaan ku daraa haafkii kaloo subaga ahay oon ka reebay waatana xalwadi meeshaasay maree marka xumbo yaryaray soo yeelatay marka heelka kista ka hadqay kisaan hadaayo ku daro waa ogeedeen kista ka hadqayaan ku daraa maasha allah waa ku walaaqaa marka waatana xalwadi raali ahaada maasha allah waa taasaasay u egtaha waa ujeediin ha soo qaboodo waa in tusaa insha allah xalwadii waa tanaa maasha allah say u taalo waa aragteen haddaad jeclaateen like saara commentii kasoo qayb gala share sameeya subscribe sameeya kulligiin maasha allah ilmaha GCSE-dana in advance congratulation aan leeyahay waa baasi doontiin insha allah sidii levelka ciyaalka ay u baaseena u baasi doontiin qalbiga qeyr ha loo sheego waalidiintan ilmaha ha u dhimriyaano maxay heetoy wax walba oo keenaan oo ilaahay qadaro ha lagu qaato alxamdulillah kulligiin xafidullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu